hadda waxaan ku jirnaa live-kani waxa weeyaan 24 hours baa imika ku jirnaa saas imika 24 hours aan noo dhammaaday ma garateen marka 24 hours kaas maxaa la yidhahdaa lacag badanaa shaqaynay lacagtaasi waxay gaaraysaa si fiican dhegeysta waxbaan dadka fahansiinaa sababtoo ah weli waxbaan waxay gaaraysaa lacagtaasi $40,000 manaa $40,000 ayaan ku shaqaynay 24 saacadood one day allahu akbar laakiin midaa jirta waxaana ku jirin EVC pluska saada kuma jirto Ethiopia lacag lagu soo diro dhan kuma jiraan xogaaga TikTok soo dhacana kuma jiraan so marka taa macnaheedu waxay tahay lacagta aan imika idiin haynay hubno waa $40,000 Dirisla Cabdi oo ah YouTube Soomaaliyeed ayaa 24 saac oo xiriir ah oo ku jira live wuxuu ku aruuriyay lacag cadadeeda dhan tahay $40,000 lacagtaas ayaa waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo miskiinta gargaarka u baahan bisha barakeysan ee Ramadaanka. Dirisla Cabdi iyo tiimkiisa oo ka koobnayeen ilaa 10 qof ayaa waxay 24 saac gudahood ku aruuriyeen lacag dhan ilaa $40,000 waxaana lacagta soo diray in ka badan 300 oo qof oo Soomaali ah oo ku nool adduunka daafiisa. Dirisla Cabdi kooxdiisa ayaa waxay sameeyeen taariikh wanaagsan dhiirigelin iyo ammaan ayayna mudan yihiin. waa markii uu horeysay taariikhda qof Soomaali ah intuu live soo galay 24 saac ku aruuriyay lacag ka badan $40,000. dhanka kale Dirisla ayaa wuxuu aad ugu mahadceliyay shacabka Soomaaliyeed kuwii sadaqada la baxay iyo kuwa waqtiga aan u saamixin. dhanka kale Dirisla ayaa wuxuu ballan qaaday in lacagta markay aruuriyaan cadadooda rasmiga soo sheegi doonaan wuxuuna dhanka kale sheegay lacagta inay ka badan tahay $40,000. Dirisla Cabdi tiimkiisa ayaa markale waxay ballan qaadeen bisha barakeysan Ramadaan inay dhexdooda markale saan suubin doonaan eena live 24 saac soo geli doonaan wuxuuna sheegay inuu targetkooda yahay $100,000. daawade haddaad ka qayb qaadan qaybtii koowaad waxaan soo iclaamin doonaa maalinta dhacaysa qaybta labaad oo ah bisha barakeysan ee Ramadaan. halkaan naga daawanaysiin oo wanaagga qoyska ala u barateen barnaamijka arrimaha bulshada fadlan dano cusub subscribe leh maalintana ku wacnaato.